saaka waxa waqti la qaadanaya niman aan isku galaas nahay oo dhigin jiray galaaskan dhigin jiray hadda dhigta magacaaga maxaa adiga Kiis. ninka kiisa la yiraahdaa adigana Cabdirasaaq. adigana Faan. adigana Faan. anigana cali la yiraahdaa adigana Farxaan. adigana Xamd. ninka magacii ninkaasan garanaya Xamd. nimankan isku galaas nahay waxa weeyaan kow laba waxa weeyaan intatiin toddobaadkii nimankan waxay dhigtaan galaaskii la oran jiray daafuur waxa weeye niman daayar hadda soo kacaya labaad wey waqtigooda ku wada qaadanayaan galaaskan maanta khamiis isugu nimid waxa weeye maalin xasuus leh intaasoo nin baan maanta iskuul lahay galaas soo baxnay sagaal nin halka ayaa ku salaamsan nimankii hore galaaska dhigin jiray lahaa daafuur ya nimankii la oran jiray daafuur baan ka salaamsan soo maaha maxaad oran lahaydeen saaka hala qabta nimankaas iskuulka ka qabtaan maxaad oran lahaydeen ya balcad ma haysano fariid inaysan balcad haysan nimankaas iskulaas baan nahay waa niman iskuulku dhigan jiray waxaan jecelahay nimankii reer daafuur meel kasta ay joogaan waxa weeye waa 10 nin 10 nin balcadooda hala iska badan doono arsaas maaha waayo iskulaas baa tii galaaska ka soo baxdeen bay dhigtaan maanta waa nimanka yar oo junior way baahan yihiin markaa waxaan jecelahay insha allah khamiisteeda inaynu galaaskan waqti ku wada qaadano oo isugu dhimaadno maxaad leedihiin nimankaas arrinkaa dhameeya soo maaha waad maqlaysaan dhammaantiin waxaan jecelahay inuu arrinkaa dhammaysaan nin walba dee maanta boos baa taagan tahay marka waxaan jecelahay inaad waqti fiican la wada qaadano galaas maalin walba galaas baan idiin soo gudbin doonaa waa salaamaysa soo maaha daafuur oo dhan way annaga salaamaya